ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay howlgallada ka dhanaha dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ay ka sameeyeen deegaanka Daynuuna iyo sidoo kale tuulooyinka hoostaga ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa intii ku guda jireen howlgalkan ka dhanka ururka Al-Shabaab waxa ay halkaasi ku burburiyeen fariisimo ay Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi ciidanka ayaana iska caabin kooban waxay kala kulmeen dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab hase yeeshee ilaa lama sawirin dhimashada dhaawac ka dhashay israasayntaasi waxaana ugu dambeeyay ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed kuwa maamulka Koonfur Galbeed u suurta gashay in ay guud ahaan la wareegaan deegaanka Daynuuna saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaasi ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgalkan lagu baacsanayo dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab oo ay ugu dambeeyay si xooggan u soo buux dhaafiyay deegaanka Daynuuna maahan markii ugu horeysay ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ee howlgallada ka dhanaha dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ay ka sameeyeen deegaanadaasi waxaana waayii ugu dambeeyay Al-Shabaab laga saarayay deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka Bay halkaas oo in muddo ay fariisimo ku lahaayeen